السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada meel kastoo dunida ka joogtaan maanta waxaa idin wada sheeko aan la yaabay qoftaana u jeedaan waxaa la dhahaa Linda waa 33 jir Linda ma Lina waa 33 jir caan ka ah barta TikTok-ga waxayna ku leedahay dad ka badan 2 milyan qoftan waxay u dhalatay wadanka Indonesia waxay ahayd qof ku caan baxday soo bandhigida muuqaalada maaragtay dalxiiska baashaalka caweyska adiga waxaan ku dhahay waxay ahayd qof ee u shidan tahay oo nolosheeda iskaga raaxaysato sababtaasoo ay dad badan u jeclaayeen ugu xirnaayeen baraheeda bulshada gaar ahaan barteeda TikTok ee muuqaalada inta badan ku soo bandhigi jirtay laakiin nasiib daro masaakiintan hadda waxay ku jirtaa xabsiga waxayna xabsi ku gashay wax aad iyo aad basiid u ah iyada agteeda laakiin sharciga wadankeeda ka ah wax weyn gabadhan ayaa waxay dalxiis u aaday Bali waxayna caan ku ahayd inay wax walba cusub ay tijaabiso meelaha dhaadheer la koraayo adiga wax walba cusub inay tijaabiso cuntooyinka cusub habeenay waxay aado maqaayad saa idin sheega wax cusub laga raacay waxay istiri wax cusub tijaabi waxayna meniga ku aragtay pork oo aqaansiirka waxayna ku fikirtay inay qaansiirkaas tijaabiso qaansiirka ay tijaabinaysay muuqaalayna iskaga duubtay ayadoo qaansiirka dhadhaminayso laakiin wax ku qaata ma ogi intii dhadhaminaysay isdheysay dhadhamaysan bilaabin ayay waxay dhahday bismillaah kadib muuqaalka wixii ku soo fasaxday baraheeda bulshada wuxuu dhaliyay carab badan dhanka commentiga wixii way sii dhaaftay commentiga wixii gaartay booliska wadaadadii wadankeeda kadibna waxaa loo gudbiyay maxkamad nasiib daro gabadhan maxkamad waxay ku xukuntay 2 sano oo xabsi ah baashaalkeedii nolosheedii quruxda badneed iyo asxaabteeda faraha badnaa waxaa soo afjaray dhadhamis qaansiir ee dhadhamisay waliba bisinka u qabsatay